Very important question. Can you explain why our Somali girls like guys from other countries, or even they have more respect for foreigners? It's true. I'll tell you an example. In Somalia, nin baa soo doonay waa nin cad wuxuu yidhi waan ku guursanayaa okay inantii buu la yidhi Saciid waa meher inantii masaajidka laga keenay na dumarka ma meheriya waan ka carraaran laakiin meheriya laakiin marun bay ku qabanayaan masaajidka ku qonayaan ilmika ka saar inantii waan ku yidhi meherkaagu waa maxay markaasay tiri 25 cents waa a quarter marka dollarka 4 meelood loo qaybiyo waa meel waa 25 cents wax kale ma doonaysid walaalkeed baan ku yidhi warba la hadal dee markaasuu yidhi sheekh hadday 25 cents doonayso 25 cents ku meheri maxaan samaynaa dee kaale baan baaraka allahu fiik maxaan kugu diidayaa بارك الله بالرخيص بقيت هذا عرفت موقتي كان ومهر صوت قولي أمو كرينين ميلي حين الدقين تي أيدي ميلها اسمه كوار أركان باسكيل بقول لي مركب باسكيل كقابة حرفت الرجايب باسكيل بكقابة برد كرة عيا أي باسكيل حق الدموع صار أنت حي عبايده وده قوينتها جلبك وده قوينتها جلبك وقراعي نقاب كيف يعرك مريا إن حاجة سيف وشنتي مركا قضية الصومالية مساجك تشوقة يعني جو هبل إيجار دوما كان عنك الله قراي وحول ورهاده كوانو بابور ديران أنو صارو أن نقول عد أن دجني أي نفتي نو كانك محوكو أخريتان محوكو أخري صومال inankii uu isaga dhoofay wadankan uu tagay damba kama garo masruufo uu furay uu soo tuuray way soo noqotay waxay tiri waxaan doonayaa warqat talaaq inaad ii qortid saan ku leeyahay warqat talaaq ayaa doonaysan ku qoraha oo ma cid kala heshay guursanaysa saytira inaan ilmaadeernahay ayaa i soo doonay excellent that's wonderful مبروك سانكوري ده كي نكي عدا مركا إن نيما لو جورس أكسونادا وإن وحده نكي ما شاء الله نيما نسبة كي جورس باكي ده شنيا الله بطلنا نقول لك تايم هركية كان يمسون نقاني مركا نيدم حي بيشرته إن ده كان حيسوي رنسوار بسم الله قرية مساج كي نجيو وذات كي الله بشهيد نوكين سيتر الشن يلا باتن كن أو دولار مهركي قوي شن يلا كن أو دولار والله إلهي بيقصر ريا ما كسام كولي وإن هذا كان الشن يلا ما تكقاته أضو عرملة كل عيبني ما يعني إنك دمرك وجرك يقابني وإحنا ذو إن مركز إن أنت هيدنا شن يلا سنتين كبح يد مهر دونت سيقول إنه كان هو صومالي مركز it's so true دمر كانوا أنت بدن markay nin ajnabi guursadaan way ixtiraamaan waajibka ka soo baxaan ku ajnabi guursa si wanaagsan nin ajnabi koonay gabal xunbaan in qaba oo Soomaaliyeed ma jirto kuwa masaajidka yimaada saddex baa qaba dumar Soomaaliyeed saddex masaajidka yimaada wallahi wuxuu ku leeyahay wow you women are excellent sare kuwa maqseen ku hayay aragtid maqseen ku hayay aragtid ninka silsilad baan ka hayaa ninka nabar u kaadi na fadhiiso كب يسيته إلهي بس كب وسخيه ديوسيه أنك قراعي وكل هذا هل كانوا يحكوا لي دمر كلمة عجيب ساكور سرت قرصو يسكعهم مركز دمر كانوا أجنبي ويوجد شبيهين أصقوا لبينيا وصدحينيا وأفرينيا وأيانا هدلينين لكن إن أدرك دور دوان لبينيا وإن أدرك ضيعنا الأسطورية مي شمدد ضيع عرورته بقى كي أنسى إن مريع مركا واحد أي دمر كينو إنك ينبي وحولوا به مركا
in la isqaboojiyo oo sida dumarkaasi ragga ajnabiga u dhaqmaan dumarkeenu tii raggii noo dhaqma raggoona dumar wanaagsan oo ayaguna ka soo baxa waajibkeeda way jiraan mawdari kulligooda caynka laakiin intan arkay dumar Soomaali ajnabi qaba aadba iyo aadba dumarku ugu jilicsan ajnabiga marka waa ciidad wana sidii waxa weey inferior inaynaku uqdata nafsiya ugu jirto ajiib waxa ana inanta Soomaaliyeed ee isku tuunta dhaban inay yara qurux badan tahay ajnabi la doonata soo ma ogidin intooda qurux isku yara tuhmaysa waxa doonaysaa nin ajnabiya nin cad nin hindiyo oo maxay hindi ku falasa Allah عرفتي دون تمشي عشان يا شام يتر يعني كي واحد لو قرصني واتمشي الحسن